wararka laga helaya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegay inay qorsheynayaan isku shaandhayn lagu sameynayo golaha wasiirada, taasi oo saameyn doonto wasiirro muhiim u ah oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. wararka ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Axmed Macalin Fiqi lagu wado in lagu wareejiyo xilka wasiirka gaashaandhigga, taasi oo noqonayso isbeddelkii labaad ee wasaaradda gaashaandhigga muddo bil gudaheed lagu sameeyo. xilkan waxaa hore loogu wareejiyey Jibriil Cabdirashiid Xaaji kadib markii xilka laga qaaday Cabdiqaadir Jaamac Maxamed. dhinaca kale waxaa xilka wasiirka arrimaha dibadda oo bannaanaan doono ayaa weli la xaqiijin cid qaban doonto, waxaana u sharaxan ilaa 3 qof oo 2 ka mid yihiin wasiirro. isbeddelkan cusub ee miiska u saaran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saameyn doono qaar ka mid ah saaxiibadiisa ugu muhiimsan muddo xiriirkiisii labaad oo kala ah Axmed Macalin Fiqi, Cabdullaahi Cali Maxamed Sanbalulshe. kadib dagaalkii Al-Shabaab ay ku qabsatay degmada Aadan Yabaal ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaaqay qorshe cusub ama isbeddel cusub oo markii lagu sameyn doono hay'adaha amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga. kala wareejinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ayaa ka dhigan in marka lagu laabto awood qaybsiga beelaha, iyadoo ay adag tahay kala sarreynta shakhsiyaadka loo xulayo xilalkan. jahwareerka ka jira madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa keenay in baraha bulshada loo adeegsado ololaha isku soo horjoodo oo ku saabsan isku shaandhaynta cusub. taageerayaasha agaasimihii hore ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa bilaabay inay faafiyaan qoraallo marka lagu sheegay inuu xilka mar kale uu qaban doono Mahad Maxamed Salaad oo aan la xaqiijin weli. waxaa kaloo la hadlayaa xildhibaanadii siyaasiyiin xukuumadda soo geli doono iyo qaar kaloo laga saari doono. dhowaan waxaa la beeniyey in xilka qaadis lagu sameynayo ama iscasilaad uu gudbiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odawa Yuusuf Raage. isku shaandhayntan cusub ee kala beddelka golaha wasiirada ee joogtada noqday ayaa si gaar ah indhaha loogu hayaa, iyadoo oo la eegayo sida ay u saameynayso siyaasadda arrimaha dibadda, ammaanka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo beesha caalamka. haddaba sidee u aragtaa adiga?